Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada casharada taxanaha ee Class Academic and Technology. Waan kusoo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharo kala doora. kulan wanaagsan mar kale kusoo dhawaada lesson-keena afraad ama casharka afraad ee Adobe Premiere Pro ee Class Academic and Technology. waxaan casharkeena afraad aan kusoo samayn doonaa sida muuqaalka loogu sameeyo qoraal, si muuqaalkaasi hoostiisa qoraal loogu sameeyo ama qof title-kiisa aad doonaysid inaad muujisid, iyo weliba waxaan kaloo ku baran doonaa sida loo mideeyo fiidiyoyadan. saddexdan boos ee loogu talagalay inaan video dhigano way buuxsameen. haddii aan shaashadan iska yareyno boosishino kale way helaynaa haddii shaashadan ay naga yaraato, laakiin waxaa meesha ka baxaysa haddii aan meeshaan boosishin kale aan ka helno shaashadan wax ka arkaynay ayaa aad u yaraanaysa. marka iyadoo shaashada aan la yareyn oo sideeda ay ku tahay ay aad u weyn tahay shaashadu, ayaan doonaynaa inaan sameyno inaan fiidiyoyadan maadaama ay dhowr xabo yihiin inaan hal xabo ka dhigno oo aan midayno. waayahay kan kuma jiro asaga lama midayn karo, laakiin fiidiyowga 1 2 3 saddexdaas track kuwa ku jira oo fiidiyow labana ay fiidiyow yihiin midna uu picture yahay sida hore usoo aragnay ayaan doonaynaa inaan midayno. okay, marka dhammaantood waa highlight gareynaa, saddexdooda waa isku qabanaynaa inaan midayno ayaan doonaynaa. markaan saddexdooda isku qabano oo saddexdooda active ay noo noqdeen ayaa right click leenahay. right click markaan aan niri waxaa noo soo baxday shaxdan dheer ee isku taxan ayaa noo soo baxday, listigaas ayaa noo soo baxay. waxaan dooranaynaa qaybtan ay ku qoran tahay nasti ayaan ku dooranaynaa. nasti sida qofka programka yaqaana waa qaybo isku eg oo hoos imaanaya. nasti baan leenahay. markaan nasti niri wuxuu leeyahay nasti sequence-gaaga magac ula bax ama sidaa u dayso. marka waxaan leenahay lesson 3 lesson 4 baan ula baxnay. casharka afraad maadaama uu yahay casharkan waxaan ula baxnay casharka afraad. marka maxaa aragnay lesson 4 baa noogu qoran, hal xabaa laga dhigay, taa wixii dhan la soo aruushay ayaa hal xaba laga dhigay. okay, halka xab maxaa isku ah? 1 sawirka, 2 muuqaalkaas, 3 muuqaalka weyn. hal xabo ayaan kasoo koobnay. waayo marka saan u sameynay muuqaalada dhama hal xabaan ka wada dhiganay. halka xabo waxay u taagan yihiin hal position, dhammaantood isku mar waa la wada yareyn karaa, isku marna waa la wada weyneyn karaa, oo waxay u taagan yihiin hal xabo is wata ay u taagan yihiin. marka shaashada sida noogu soo celi, sidiis hore nooga dhig, ama haddaan doonay sidiis hore ka dhigo waxaan leenahay sidiisa ka dhig baan leenahay. halkaasaan ku dhifan reset. okay, nastiga waa sameynay. waxaan doonaynaa inaan marka qoraal ku sameyno. aan leenahay waa shay sidaas waa mas'uul hebel, waa tartan, waa hebel. title-ka inaan sameyno. title-ka waa gaar marka asagoo qoraal weeyaan. waxaan leenahay halkaa ay ku qoran tahay madaxyada kore, qaybta ay ku qoran tahay title baan gujinaynaa. kadibna waxaan leenahay new title. waxaa noo soo baxay list kale oo ah default role iyo crown iyo, laakiin anoo midka ugu koreeya default caadiga qaadanaynaa, kuwa kale waa arki doonaa. wuxuu leeyahay title 1 ma ula baxaysaa. title 1kiisa igu daa. title 1kiisa ha ahaado halkan. wuxuu leeyahay wide-ka waxa ka dhigay 700. halkan wax waa ka bedeli karaa oo waa ka dhigan karaa meesha 700 iyo ay 20 ay tahay waxa ka dhigaysaa, waxa ka dhigi karaa 1980 ma 1920 baad ka dhigan karaa. size weyn macnaha. halkan waxa ka dhigi karaa 1080 size-ka waa weynka ay yihiin oo kale aan ka dhiganaa. halkan waxa ka dhigaynaa 30 baan ka dhigan karnaa so size weyn u noqdo title-keena. marka title-ka waa sameysanay. wuxuu noo soo furay qaybtan uu noo soo furay masana oo meeshii wax lagu qori lahaa weeyaan. waayahay marka halkan markuu noo soo furay
oo page-kan uu sidaa noogu soo furay shaashadeenana ay ka shishayso waxaan soo dooranay qoraalli farihii waa kuwan hoos bay ka muuqdaan mid ka mid a ayaan soo dooranay markaan soo dooranay click baan siinay waxaan qoraynaa waxaan leenahay waa casharkii afraad waa casharkii afraad Adobe-ka waa casharkii afraad Adobe-ka ayaan qornay waa casharkii afraad Adobe-ka ama waxaan nidhi kaa iga tirtir waxaan leenahay waa casharkii afraad ikhlaas waa casharkii afraad ikhlaas markaan nidhi control A baan leenahay fartaan say noogu noqoto kalarka rabtid doonaysa inaad kalarka rabtid ka dhigtid sidaa markaad tirahdid ayaa waxaad gujinaysaa halka ay ku qoran tahay 100% hoosteeda ayaad ku qoratay marka waxaad qaadanaysaa kalarka alla kalarka rabtid jaalle madow cadaan baa ka dhiganana marka kalarka cadaanka geesahaas ku jira weliba meelaha laga helaa asagoo geestaas uu ku jiraa kalarka cadaanka dooranay kalarka cadaanka dooranay okay waan niri kalarka cadaan saas u dooranay kalarkii halkan wax ka dhigan karnaa solid oo waa solid noo yahay siisan u deysan karnaa ama noocyo kale ka dhigan karnaa okay bold waa fartu noo tahay oo fartu bold way noo tahay okay marka intaas ay noo tahay wax ku dhufananaa muuskaas yar oo sida Photoshop iyo kaleeto uu leeyahay halka ayaan ku dhufanay intan waa kala jiidi karnaa saan waa u dhigi karnaa hoos waa geyn karnaa waa maamuli karnaa meel alla meesha rabnaa geyn karnaa sidaa markay noogu samaysan tahay weliba aan si fiican usii kala bixino si farta noogu noqoto mid si fiican u muuqato marka xagga ay tagto marka intaas samaysanay save iyo wax kale uma baahnaa waxaan leenahay cancel baan leenahay ama close baan niri halkan ayuu madow baan ku soo dhigay background-kii fartii meesha ku qornay title-kii waa soo jiidaynaa sidii muuqaalkii oo kale to halkaan aan keenaynaa kadibna waa kala bixinaynaa okay kadibna waa kala bixinaynaa title-kiisa hore nagu ceshay double click mouse-ka naga yiri xaggaan markaan saa u qabanaan derbiga geynaynaa hagee ku jidhaa farti ma muuqataa marka fartii halkee ka muuqataa hoos bay ku jidhaa waayahay marka halkaas aan ku dhufanay motionka noo soo kacay motionka ku dhufanay waxaan leenahay fartii hoos bay ku jidhaa isaan usoo kicino waxaan leenahay halkaan ayaa laga wadaa marka kor u dhigaysid marka hoos u dhigaysid halkaan laga maamulaa marka hadda minus ay noqotay fartii soo baxday fartii aad u waaweyn tahay marka noo yaryare hoos usoo deji marka hoos usoo deji okay marka halkaasay joogtaa weliba iyadoo kalarkeedu uu yahay aad u waaweyn ayaa halkaas joogtaa soo ma aragtid fartaas marka waxaan leenahay kalarkan kasoo bedelaynaa kalarka uma ana bogin kalarka waa kasoo bedelaynaa halkaan double click siinaynaa meesheedii aan ku celshay halkaan markay noo joogto ayaan textiga dooranaynaa ayay dhexdeedan ku dhufanaynaa highlight baan leenahay waxaan leenahay hoos baan u soconaynaa qaybtan ayaan gujinaynaa horta geesaha waxaan ka dhigaynaa green baan ka dhigaynaa geesaha waxaan ka dhigaynaa jaalan geesaha ka dhigaynaa farti geesaheeda jaalan ka dhigaynaa okay baan niri waa geesaha waa qaybta kore halkaan aan ku dhufanay maadaama fartii hore loo jiidi waayey waxaan leenahay wax ka dhigtaa buluug maadaama wax u eg aysan jirin buluug ayaan ka dhiganay kadibna okay baan niri kadibna tan waa iska sii kansalnay marka waxaan aragnaa waxaa nooga muuqda far oo jaalana geesahan jaalo ka ah dhexdeeduna ay tahay far caadi oo muuqata halkaan marka joogto hadaan doonayno xoogaa effect yar baan ku daraynaa
xalana control iyo d baan isla qabanayna control d baan isla qabanay laba dhinac marka si hoose ciiraha u soo baxaysaa haddii aan iskicino xogaa Adobe-ka culus inta badan bookiskan aan cancelno noo soo baxaya marka waa kicinay waa shidaynaa markii la gaaro dhamaadkeeda markii la gaarana waxay sameynaysaa dhamaadkeeda markii la gaarana sidoo kaleeto ayay u baaba'aysaa tartiib yar oo ciiraha ayay u dhamaanaysaa marka hadda waxaan sameynay muuqaalkii waxaan ku sameynay qoraal ka hooseeya qoraal soconaya weli maana gaarin laakiin qoraal ka hooseeya waa sameynay waxa kaloo sameynay in aan waxaan ku arahday muuqaaladii kala duwanaa ee meesha noogu qornaa aan midayno hal xaba ka dhigno marka dhammaantood qaybaha dambe casharada dambe ayay ku xiran yihiin oo casharkeena shanaad ayaan ka dhigi doonaa kuwa ku dhammaystiran la soco haddaba casharka shanaad ee Adobe Premiere Pro oo aan kaga hadli doono in aan inta hadda aan joogno aan kasii hormarin doono isla markaasna aan sii samayn doono muuqaalo qurux badan oo soconaya iyo weliba kuwa project caadi ah sida loo save gareeyo iyo hawlo badan oo hadda nooga dhiman haddaad ku cusub tahay channelkan Ikhlas Academic and Technology subscribe saar kadibna u sheeg garay asxaabta kale ee ummadda Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadla si ay uga faa'iideystaan xirfadda film editor-ka iyo weliba design-ka oo xilligan aan weli ku guda jirno film editor-kii magacaygu waa Ustaad Cabdinaasir Axmed Jaamac